السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوماليا وان إن السلامي سو دوادا أرين لا ياب لها جرتاي سو دوادا dhibaatada Soomaaliya dhexdeeda ka jirto gabdhaha Soomaaliyeed dhibaatada loo geysanaa raba inaan ka hadlo caawo waxaan rabaa saxaabay inaad soo dhawaataan oo share gareysaan oo subscribe saartaan oo beeshka kala aad ku dartaan baan rabaa hala soo dhawaado asxaabay Soomaali weyn meel kasta ay ku sugan tahay waan ina salaamaya arintana waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay ka hadlaan in laga dhiidiyo arrin xanuun badan baa dhacda Soomaaliya arrin xanuun badan baa dhacda oo gabar Soomaaliyeed loo geystay sidii Caasho looga dhiidiyo kala la raba in looga dhiidiyo Soomaaliya warkayga ina soo gaaro si fiican u dhageysta Soomaaliya arrin qisa ka dhacday dhibaato leh oo loo geystay gabar yar oo Soomaaliyeed oo ka dhacdo meesha la yiraahdo Burceel la yiraahdo Soomaaliya meel kamid ah koonfurta Soomaaliya meel kamid ah Burceel la yiraahdo dhibaato ka dhacday gabar yar oo Soomaaliyeed baa la dilay marka sidii loo dilay afaareeda waxaan rabaa inaan inaga sheekeeyo laakiin waxaan rabaa inaad kulligiin ka kacdaan sidii Caasho kale in waxa la rabaa oo macnaha maxay ahayd laga dhiidiyaa la rabaa intii codkayga maqlaysa inta maqlayso dhan waxaan rabnaa maxay ahayd dhibaatada way soo noqotay wax badan gabdhaha yar oo la dilaayo way soo noqotay koonfurta Soomaaliya aad bay imtixaanka ugu dhacday maalin walba gabar yar oo Soomaaliya waxba galabaysan gabdhihii hadda soo kacayeen 13 jir 14 jir 20 jirka yaa la qali sida xooliyo kale loo birayni ka dambana waa la jarjari bacaa lagu ridi markii la raadiyo meedadkooda meelaha laga heli wallaahi arrintaas NFD-na kama dhacdo killerka shanaadna kama dhacdo Somaliland kama dhacdo koonfurta Soomaaliya bay ka dhacdaa waxaas marka dhibaatadaas baad jirtaa gabdhihi yaryar oo Soomaali loo geysanayo Soomaaliyay gabdhaha Soomaaliyeed waxa lagu dilay baan rabnaa inaan ogaano maxaa lagu dilay gabdhahan maxay suubiyeen qofka dilay muxuu ahaa warnafo adaga war dumar yar oo maskiin maxay ka samaysay arrinta waa arrin aan wallaahi la fiirsan karin Caasho waa kii bari hore kufsigeeda iyo dilkeeda laga dhiidiyay ahayd haddana waxa la rabaa gabadha Soomaaliyeed in laga dhiidiyo aniga gabadha magaceeda ma macnaha haday waan xasuusnaa macnaha social media aan ka arkay dadka hadlayo magaceeda waan hilmaamay laakiin waad arki doontiin hadeer way gabadha wanka la dilay hadda dhawaaye shalay maanta waxay too ma aqaano laakiin intii gabadhan dhowr cisho waa la laabaa la yiri aan inay bilooyin to inay 9 ber iyo 9 bilood wax la dheer ma kala garanayo waan marka maxay aheeday gabadhaas waa la waayay intii muddo la sanaa gabar Soomaaliyeed oo meesha Burceel la yiraahdo waliba dhinaca gaar ahaan galmudug inay taan jeclay meesha arrinta ka dhacday marka Burceel meel la yiraahdo Soomaali ma kala garanay meel Burceel la yiraahdo waxaan u malayn gaar ahaan gobolka galmudug inay taan jeclay marka gabar Soomaaliyeed oo sanadkeeda lagu xisaabay 20 jir inay too ayaa gabadha intii dhowr cisho waa la waayay gabadhi waa la dadday waxa la yiri Hurmud shirkadu Hurmud baa la yiri gabadha raadiya shirkadan aadi ma aqaano dhaqsi wayso macnaha way soo raadi heli waysay gabadhi in la helo macnaha waa lagu guuleysan waayay gabadhi waxa la yiri intii la dilay oo la jarjaray oo sidii xoolihii loo bireeyay oo hilibkeeda cad loo jaray oo jawaan lagu riday oo mindidii lagu jarjaray hata waxa la yiri gabadhaas maxay aheeday jawaan la isku la sii riday ayaa waxa la yiri ceel biyaha laga cabo ceelasha kamid ah ayaa lagu ridaalay ma garanaysaa ciyaal yar oo waxa la yiri ari la jiraan sidaan sheekadaan ku maqlan run iyo been waxay talaa waclan ciyaal ari la jiraan ba waxa la yiri ayagoo meeshii ceelka korkii ku ciyaaraya cunug yar ceelka kab kaga dhacday la yiri cunugii waxa la yiri adiga cunugii markay meesha kab kaga dhacday waxa la yiri meedka ku jire ay cunugu saa ugu qoran sidoo fiiriyay markaas wuxuu arkay la yiri madax dad wax weeg buu arkay cunugii baa cararay reerku u qeyliyay maama waayeela uu aragtay oo macna cunugu u sheegay dhameesha madax iyo xoolo wuxuu mooy wax baa godkan ku jira uu dhahay cunugii maama waayeela orday way fiirisay madax dad waayay tire reerihii gabadha ka maqnaabay u yeertay waxay tira kaalaya meeshana macnaha waxay eeday meeshana madax uu ku jira gabadhiya kaalaya hadii saan loo qofo waa gabadha magaceed inay Xamda la dhahana ma aqaan magac Xamda inay tama aqaan magac saasa la sheegayay inantaas ilaahayna u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun leenahay
maxay ahayd maalin walba masiibada way soo noqotaa Soomaaliya way ka dhacdaa Soomaaliya marka waxaan maqlay gabadhi markii meedkeeda ilaa hadii la soo bixiyo reerkoodii ayaa loo yeeray hal gabadha matanba markaas waxaa la yiri ay haadheen gabadhi marka gabdhihii Soomaaliyeed saasaa loo bireeyaa saasaa loo qalaa Soomaaliya wali gaar ahaan koonfurta waa meesha wax dhibka ka dhacayo in naftii dhibaatada ma qabto kilarka shanaad ma qabto Somaliland ma qabto meesha balaayin aad uga dhacayso koonfurta Soomaaliya waaye gabdhihii mid la kufsanaya iyo mid la qowracay ay noqoto war waxaan ku iri gabdhihii baaba loo soo dhigtayba markan waxa saayeelay ma ragba ma dumarkii dhaxdooda Allahu a'lam ilaahi ba marka waxaa la rabaa gabadha xaqeeda inay hesho inay si fiican loo baaro haddii la shukaansi lagu qale hataa kii shukaansanayo wuu qali karaa maxay ahayd adduunka cadowgiya batay gabadha masaakiinta ilaahayna u naxariisto reerkii waalidkii ay ka tagtana ilaahay ehelkeedina sabr iyo iimaan Allah siiyo waa arrin masiibo foolxun waaye inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun baan leenahay Soomaaliya in laga dhiidiyaa la rabaa sida caasho looga dhiidiyo kale in gabadhaasna looga dhiidiyaa la rabaa marka arrintaas baa dhacda Soomaaliya maxay ahayd marka arrintaas dhacday Soomaaliya gabdhihii Soomaaliya saasaa loo qalqalayaa wallaahi wax laga naxo waaye gabdhuhu waxay galabsadeen ka arag garo maalin walba wax baa la kufsaday gabar baa la qalay kan baa la yeelay war ilaahay amarkii dhimashada ragga kaliya ay ku koobneed hadda dumarkiin way la qabaan marka arrintaas dhacday wallaahi waan ka xumahay ma jeclo aniga gabar Soomaaliyeed in dib la gaarsiiyo laakiin nasiib darro waay Soomaaliya ninku suganow waxa way dhibaatada waa lagu qalayaa waad direesan tahay sida ari baa ku dhaama marka Soomaaliya waa dhibaatadaas ay leedahay umaday marka waxa saa jiro intaasaan u soo galay wax kale ma hayo social media waxaan arkayaa Mareykan meesha la yiraahdo islaantii Ilhaan Cumar aheed oo de meesha kursiga Soomaaliya meesha wax bay ka aheed Ilhaan Cumar ha guulaysataa leeyahay garabkeed Allah galo Soomaali guul Allah ka dhigo guul bay Soomaali u soo hoyisay mar kalena waa in Ilhaan Cumar la doorto waayo magac bay Soomaalida yeelata Mareykan macnaa gabar Afrikaan oo Soomaali ah ayaa meesha wax ka noqoto waa magac weyn waaye dadku soo kordhintay intii Ilhaan Cumar macaarad ku ahna dacagta hoosteed ha gashaan leeyahay inta taageersanna farxad ku noolaadaan leeyahay Ilhaan mar kale way soo noqoni kursiga ay ku soo noqoni waa la soo doorani kuwa oo arka social media duqbilow ugu horeeyo oo Ilhaan Cumar ku dhagana hadda duqbilow nin waalana wareersan waaye wax laga qoraayo malaha duqbilow wax laga qoraayo malaha waa nin wareersan waa nin waxoogaa sheeshaday wax buu aad u cabaaba naqla ninka maskaxdiisa sax maaha qabiilna ma qoro qaraabana ma qoro Soomaalinimana ma qoro waa baalalay hadba meel buu ku dhaxdhacaa duqbilow waxa leeyahay hadaad Ilhaan Cumar aad macaaradana waxba kama qaadi kartid Ilhaan gabar Soomaali waaye waana gabar muslimad Soomaalina magac bay u soo jiiday maxay leeyahay meesha ay wax ka too duqbilow Ilhaan Cumar waxba kama qaadi kartid baan ku ire Ilhaan waan taageersanahay markana ku soo noqon dhahayna duqbilow iyo wixii qaaqlo meelaha ka qaqaylinayna Ilhaan waxba kama qaadi karaan hadday ajirnabi ka raaceen oo ajirnabi ay ka doorteen waxba kama qaadi karaan taasna waa in inta la ogaado shacabka qurba joogta waxaan u sheegay uga baaqay halkan Ilhaan Cumar qabiil yaan loo arkin waa gabar Soomaaliyeed waa meeshaas Afrikaanimadana nagu matalayso Soomaalinimada iyo Islaamnimadana nagu matalayso Ilhaan hal la taageeraan in leeyahay duqbilow iyo wixii ducufo doc ka qaylinayana yaan loo san joojin baan in leeyahay marka walaalahay Soomaaliyeedow meel kasta oo Soomaali wax ay kan inay ka noqoto la rabo waa inaan gacmaha isqabsano meel kasta oo Soomaali dhib ka soo gaarana waa inaan u gurmano haddaan wax kale u waayna afka waa inaan uga gurmano waa inaan qalbiga uga gurmano gabadha yaro burceel lagu qolo masaakiinta oo Ilaahay u naxariistana waa in laga dhiidiyo sida caasho kale waa in looga dhiidiyo marka Soomaaliya intaas aad ogaanaysiin share subscribe like intaasaan inaga rabaa gudbisiya page-kan waana ka baxaya si gacmo furan baan inagu salaamahay walaalayaal